xasanow qoyskan lagu magacaabo Sarkar ayaa waxay degan yihiin tuulo ku taal degmada waqooyi ee Natore ee wadanka Bangladesh. Ragga qoyskaas ayaa waxay u muuqanayaan xasanow inay wadaagaan hidde dhif iyo naadir ah kaas oo saameeyay qayb yar oo ka mid ah qoysaska caalamka waana in farahooda aan la qaadi karin. haddaba qoyskan ayaa waxaa la xiriiray BBC-da kadibna warbixin dheer ayay ka sameeyeen. BBC-da waxay la hadashay nin lagu magacaabo Abu Sarkar. Abu Sarkar markii uu awowgii noolaa wuxuu leeyahay wax dhibaataa muusan qabin oo xilligaas maanay jirinba in faraha la iska qaado. marka wuxuu leeyahay waagii awowgii uu noolaa dhibaato lamuusan kurmi jirin maadaama dunida aan laga aqoon in faraha dadka laga qaado. hase yeeshee tobannaankii sannadood la soo dhaafay waxaa dunidan ku soo badanayay in dadka faraha laga qaado taas oo qayb ka noqonaysa xogta qofka laga ururinayo marka la doonayo in la siiyo sida baasaboorada amaba liisimada dadka ay gawaarida ku wadaan. xasanow marka 2008 Abu wuxuu ahaa wiil yar markaas ayayna Bangladesh soo saartay sharciga ah in dadka la siiyo kaararka aqoonsiga ee qaranka. xogta lagu ururinaya markaas waxaa ka mid ahayd in qofka laga qaado faraha. Abu waa uu yaraa hase yeeshee aabihii Amal Sarkar ayaa dhibaato weyn halka ka maray maadaama farihiisa aanan la sawiri karin. 2010 waxaa qasab ku noqotay marka in faraha laga qaado si baasaboor uu goostay laysanka lagu wada gawaarida. dhowr goor ayuu ku laabanayay magaalada Dhaka ee caasimadda Bangladesh halkaas oo ugu dambeyntii la soo siiyey baasaboorkii walow uusan ku safrin isagoo ka cabsanaya in dhibaato uu kala kulmo garoomada diyaaradaha laga raaco. cabdi fitaax marka maxay tahay dhibaatada ugu weyn ee qoyskani ay kala kulmaan in aan faraha laga qaadi karin ama aan laga sawiri karin? dhibaatooyinka ugu weyn ee kala kulmaan waxaa ka mid ah xasanow in marka ugu horreysaba markii la geeyo goobta dowladda amaba hay-adahan gaarka loo leeyahayba dadka waxaa laga qaadaa farihii marka laga qaado qoyskan farahoodii ma soo baxayaan. waxaa qasab noqonaysa marka in su'aalo badan la weydiiyo sababta aanay u soo baxayn farahooda iyagana may ogaba. qof ka mid a qoyskaas oo BBC-da la hadla wuxuu leeyahay markii ugu darneed waxay ahayd markii aan damcay inaan baasaboor goosto oo warqaddii aqoonsiga ahayd ay ugu adkaatay inaan qaato. mar allaale markii faraha laga qaado ma soo baxayaan oo mashiintii soo saaraysay sawirka gacmaha maba soo qaadaysaba sawirkii gacmaha. waxaa qasab noqota marka in dib loo baaro kadibna guddi caafimaad ay fariistaan sidaa daraaddeedna guddiga caafimaad ay u oggolaadaan in la siiyo warqadaha aqoonsiga. dhibaatooyinka kale ay la kulmeen waxaa ka mid a in 2016 dowladda Bangladesh ay soo saartay in lafta la geliyo taleefanada gacanta lagu qaato ee lagu hadlo qofka markuu qaadanaya inay tahay in laga qaado faraha kadib la baaro lana barbar dhigo kuwa kaarka aqoonsiga ee qaranka. kadib markii la ogaado in labada farood ay isku mid yihiin qofka la siiyo. Abu Sarkar ayaa haddaba wuxuu tegay dukaan farihii baa laga qaaday kadibna farihiisii mashiintii way soo qaban weysay sidaasna waa loogu diiday. haatan taleefanada ay ku hadlaan waxaa u soo diiwaan gelisay hooyadood. waa tahay marka hooyadood iyada farahoodu waa ka fiican yihiin oo mashiinku uu soo qabanaya. aad iyo aad inta badan ragga qoyskaas ayay dhibaatadan saamaysa.